كبرينا عيدة إن إلهي بشبش يبرواقو ينبتقلي عفاد إلهي نقو قارسيو أعماشي أنو سوق ذنينا إلهي نقا أقبلو أيون إلهي ويدي سنينا إلهي وحينو كبرينا روب يمدر خير قبابين إلهي ويدي سنينا oo balaadka muslimiinta oo dhan caam ku ah ayaynu Ilaahay weydiisanaynaa oo degdega Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa nabadgelyo Ilaahay weydiisanaynaa Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa juhdiga iyo dadaalka badan iyo tacabka maanta leena geliyay ee Soomaaliland oo dhan haday xukuumad tahay iyo haday shacab tahayba ayna geliyeen sida la sheegayna wax kasto ay lahaayeenba maanta loo soo dhigay sidii cirif weyn nabad looga dhalin lahaa in Ilaahay inoo aqbalo oo tii u dambeysay la inagu yimaado ay noqoto inaguna aynu noqono walaalihii iyo wixii aynu ahaan jirnay reer cirif weyn kelmad baan leeyahay reer cirif weyn oo tacabkaas iyo dadaalka Soomaaliland oo dhan shacab iyo dawladba leena geliyay yeena khasaarayni haddaynu hore u oran jirnay waana la hagraday maanta layna ma hagranin ee waa layno hagar baxay inagu yeynaan maanta is hagranin kelmadda kale aan leeyahay waxa weeyaan reer cilif weynow nabadda inaga u baahan inaga ku nool waxa walaalaheen meel kasto ay daafaha joogaan Soomaaliland baa laynagu soo gurmaday waa inaynu walaalo noqono wixii aynu ahaan jirnay ahaano haddaynan tahay inagu kala shaqeeyna suuro gelimaysa aynu kala shaqeeyno cilaf weyn saddex hal oo caan ku ahayd inaynu soo celinaa la rabaa koow cilaf weyn waxay ahaayeen dad walaalo ah oo qoysa oo ehela oo aan gasiin iyo gogol iyo guri toona kala lahayn bay ahaayeen ka inaynu soo celinaa la inaga rabaa ka labaad degmada cilaf weyn waxay ahayd degmooyinka xagga dakhliga ugu horeeya waxa sababay baaxadda dhulahaaneed ay ku fadhido iyo khayraadka kala duwan ee haday bad tahay iyo haday maxay ahayd xoolo tahay iyo haday beero tahay iyo haday xabko iyo fareen tahay iyo haday macdan tahayba ku duugan kaasna wax la inaga rabaa inaynu ka faa'iideysano waxaynu kaga faa'iideysan karnaa waa nabad midka kale ee cilaf weyn caan ku ahayd waxa weeyaan cilaf weyn waxay ahayd dadka aqoon ahaan ugu horeeya ayaa ka soo bixi jiray geyiga Soomaalida dadka ugu horeeya xagga aqoonta ayaa ka soo bixi jiray kaasna wuxuu ku imanayaa waa nabad iskuuladeeni maanta waa xiran yihiin inamadeeni maanta aqoonyahanka ahaan lahaa qoryahay sitaan ee inoo camir lahaa iskuulada iyo jaamacadaha arintaasi waxay ku imanaysaa nabad wada noolaanshaheena iyo ehelnimadeena waxay ku imanaysaa nabad maanta dib yeynaan jaleecin wixiina soo maray yeynaan jaleecin wixiina ugu kala dhintay yeynaan jaleecin wixiina ugu kala dhaawacmay yeynaan jaleecin wixiina kala gaadhay laakiinse aynu u jeesano kaliya sidii aynu nabad u heli lahayn taa maanta laynagu soo gurmadeen aynu garmaha iyo gacmaha u qaban lahayn una taaba gelin lahayn una suuro gelin lahayn ilaahayna aynu la kaashano Soomaaliland aynu la kaashano qodobka u dambeeya ilaahay waxaan ka baryayaa ciideeda inagoo reer cilaf weyna inaynu maanta garoonka aynu joogno aynu ku wada tukano mar labaad iyo mar saddexaad ehelka heer Soomaaliland ee inoo soo gurmaday ee wax walba ay lahaayeen dantoodii inoo soo huray waanu mahad celinaynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo horeeyo madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka oo arintan u soo igmaday oo halkan inala jooga sidii ay maanta nabadeena meel ugu ogaan lahaayeen oo wasiirale oo maxay ahayd golo wakiilale oo guurtile oo cuqaale oo dhijiyale oo cid kastaba leh halka u soo gurmaday in maaragtay maanta cilaf weyn nabadeeda meel ugu ogaaday